kusoo dhawaada mawduuca kan oo muhiima mawduucanani wuxuu ku dhisan yahay waxaad ogaatid hayse dhibaata ka soo gaareen haddaad jaahil ka tahayna sidoo kale usa cilmi ka maqnayn qof yowma ogtahay in abeesada iyo shimbirka taawuska loo yaqaan in laga soo eriyay jannada markoodii hore sababta looga soo eriyay maxay tahay qisadooda ama arrinkaasi qisa ku saabsan ayaynu halkaan idinkula wadaagaynaa ee nala socda bilowga ilaa dhamaadka Allah idin barakeeye shimbirka taawuska ee midabkiisu yahay buluuga wuxuu ku badan yahay oo ku nool yahay dalka Hindiya waana laga ixtiraamaa bal calanka Hindiya bartamihiisa ayaa midabka taawusku matalaya muuqaal quruxsan buu leeyahay taawuskaasi oo ah midka ugu quruxda badan ee ku nool caalamka kaasoo hadda ku nool dalka Hindiya taawuska Hindiya ku nool waxaa lagu tilmaamay inuu yahay kan ugu qaalisan oo ugu sareeya shimbirka taawuska in badan oo kamid ah wadamada loo dalxiis tago wuxuu kamid yahay taawusku meelaha la siyaarto daawasho loogu tago quruxda iyo muuqaalka uu leeyahay daraadiis shimbirka noocaas iyo maska ama abeesada riwaayadu waxay tilmaameen in asalkooda jannada laga soo eriyay sababka ayaynu ogaanaynaa kutubtii hore waxaa lagu tilmaamay in taawusku ahaa midkii u fududeeyay ibliis inuu soo galo jannada kadibna uu tuso geedkii laga reebay aadam ee markii dambe sabab u noqday inuu cuno halkaasna waxaa ka dhashay in aadam jannada laga soo bixiyo calayhi salaam amma maska asagu wuxuu ahaa suuradii isku soo matalay shaytaan markuu jannada soo galayay soo ugu soo gabado halkaas ayaa laga raacay mas oo jannadii waa laga soo eriyay waxaa la tilmaamay taawuska iyo abeesadu inay ahaayeen kuwii saaciday ibliis oo sanado badan albaabka jannada garaacayay inuu jannada gudaha u soo galo ibliis jannada ayuu galay oo bartamaheeda ayuu gaaray sidaa darteed waxay tilmaameen kutubtii hore in xayawaankaanu markii hore ahaa kuwa u adeega nabi aadam asaahate ay khiyaameen ibliis oo ku soo gabanaya kuwaas ayaa jannada bartamaheeda soo galay halkaas ayuuna ka bilaabay inuu aadan iyo xaawo ku qanciyo geedkii ilaahay ka reebay inay cunaan geedkii nabi aadam markuu cunay ilaahay jannada ayuu ka soo eriyay nabi aadam xaawo iyo shaytaanba oo ay la jiraan maskii iyo shimbirkii taawuska sababtaas ayaa keentay in jannada laga soo eriyo khiyaanada ay khiyaameen nabi aadan iyo heelintii ay u hiilayeen ibliis kaasoo fasaad u sababay ibn aadanka aad iyo aad baad u mahadsantihiin inaa wax ka ogaateen mawduucaani laga yaaba qaarkiin inuu ku cusub yahay ayaan filaynaa ra'yigiina waad ka dhiiban kartaan haddii aad maqasheen ama wax dheeriya aad maqasheen oo arrinka kan ku saabsan kommentiga iyo qaybta hoose faallada ayaa nagula wadaagi kartaan si aan u kala faa'iidaysano culumta dheeriga ah